horta wax walba aad jeceshahay mar walba bilaaway baahan yihiin aabaya mar walba wuxuu dhihi jiray haddii aad rabto inaad wax samaysid marka hore lugta koowaad laga bilaabaa lugta labaad ayada raacaysa والله horta marka soo galay waxa islaha adoo qosleysa soo galay laakiin anoo ilmeenaya soo galay qalanjadii quruxday qoreyshadii haweenkay dumar ugu qaayaroonay qurubta Soomaali oo dhan baad qayb u degto qiimo iyo kalkacal ku abuurtay laabtooda رعد قلنشديدا ما كي قاد قلنشديدا حسكا قبيل قلنشديدا أنا نوقر قلنشديدا قرد رعد قلنشديدا ما كي قاد قلنشديدا حسكا قبيل قلنشديدا أنا نوقر قلنشديدا سعد وياه قروح سنتيدا قول كذا يدقي قروح سنتيدا قصبي قولنا يدقي قروح سنتيدا أو قشوعي قروح سنتيدا ويا سعد وياه قروح سنتيدا قول كذا يدقي قروح سنتيدا قصبي قولنا يدقي قروح سنتيدا أو قشوعي قروح سنتيدا يرتوى قلنشيغا قروح ذان نبوغيغا قلبي غاي سورنتيغا انيغا كوقنعيغا يرتوى قلنشيغا قروح ذان نبوغيغا قلبي غاي سورنتيغا aniga ku qancay aga yartuwa qalancheega quruxdan bogeega qalbiga isuranteega aniga ku qancay aga yartuwa qalancheega quruxdan bogeega qalbiga isuranteega aniga ku qancay aga قال الدمر قلان شذيدا وانا قيمة بدن قلان شذيدا قرقرنا انت وعن قلان شذيدا غير كذ كدفت قلان شذيدا وقال الدمر قلان شذيدا وانا قيمة بدن قلان شذيدا قرقرنا انت وعن قلان شذيدا غير كذ كدفت قلان شذيدا ومانا استورنا قروح سنتيدا قرتنا وديرا قروح سنتيدا قصيقو دحليدا هي قروح سنتيدا وانا قيب نفتيدا قروح سنتيدا ومانا استورنا قروح سنتيدا قرتنا وديرا قروح سنتيدا قصيقو دحليدا هي قروح سنتيدا وانا قيب نفتيدا قروح سنتيدا يرتوى قلنشيغا قروحدان بوغيغا قلبي غاي سورنتيغا انيغا كو قنعي aga يرتوى قلنشيغا قروحدان بوغيغا soo dhaweyntii iyo waliba hawsha halkan aan u nimid gabagabadii ayaan joognaa saarkaysa gabadhii guuleysay quruxda qaaradda Afrika ayaan la taagan ahayd cadar يوسف إبراهيم أو بدنا خلنا في بعدين أنا بالخور قاب كل وصل وين سوا ركتو الصومالي يسيك كذي وعليكم السلام ورحمة الله مانتين كل جينا مد جورس إلهي ما هذا سكناتي ومانت مالنتان هرجلية مد هذا لواد محمد علين جارة أو علينا يا تذكي الصومالي ذي إلهي يقدر لي أو جبت وبعدين وضع جعلها كل جينا أدي أدا وما تسنتين. طيب بس شنو وصل وين حتى وصل وين مثل هيد كالنتان الصومالي أوجا شيء وقولي سنتها. قفرت رجوحن ملهن قفل مركو بحي رجدي سوفي عنتاي الحمد لله رجوا لهن إلهي ونقصو قولي الحمد لله دور كوية كلها أنا معناها كسوقة فاميل كي هو ذي أبي
binti dhaqane kaliya hal su'aal aan ku weydiin lahayn maadaama gabar Soomaaliyeed aad tahay oo guul weyn aad u soo hoysay gabdhaha Soomaaliyeed iyo dhammaan qaranka Soomaaliyeed dareenkaaga sidoo ah Muqdisho markii lagu soo dhaweynay iyadoo aan ognahay qof wadankiisa markii lagu soo dhaweynayo dareen gooni amiyay ku lahayd sidee ku soo aragtay Muqdisho والله هرتا الحمد لله قفل بو هرتا dadkiisu wax ku yahay mid ugu horeyso sharafna waxay ahayd inaa markii ugu horeyso dalkayga aan ka dago oo kraanka gurigeena aan geeyo dad ilaahay gobna waa iga dhaliye sida aan filay si ka fiican waa la ii soo dhaweeyay alxamdulillah والله qof walba horta waxa leeyahay guul markuu gaal meeshiis kuma istaajiyo oo si dheereeya marka insha Allah wax weyn oo rajaynayna haduu Ilaahay idmo horta wax walba aad jeceshahay mar walba bilaaway baahan yihiin aabaya mar walba wuxuu dhigi jiray haddii aad rabto inaad wax samaysid marka hore lugta koowaad laga bilaabaa lugta labaad ayada raacaysa marka mar walba ku dadaal waxa adiga personally aad jeceshahay inaad samaysid kabacdi wixii kale ayaga soo raacayaan marka don't give up wax walba aad kooyga aad samaysid heerku gaaraysid mar walba inaad koogi lug aad dhacdaa marka intaad ku jirtid jidkaas ha give up gareenin mlikuwa mnadhani ya kwamba mnasikia Somali huko kuna njaa kuna vita whatever mlikuwa mnadhani kama binti Dhaqane au Adar whatever atachukua kwa hiyo culture na ata win kwa hiyo nini competition When it comes to a beauty queen, you are who you are when you're representing where you're coming from. It doesn't matter if kwenye umetoka kuna njaa, kuna umaskini, it doesn't matter. Once you're a queen, forever a queen. What about you? Well, I believe that it doesn't matter where you're from. I mean, look at my skin. I'm from a country where we fight all the time. But we went there as sisters, and we went there to represent our countries with pride. And at the end of the day, we are all Africans, and we're very proud of it. binti Dhaqane su'aali aan ku soo gabagabeyn lahaa amaba anagoo waqtiga nagu yar waana daalantaa safar dheerna waa ka yimaad dareenka dadka reer Nairobi eheladaada iyo saaxiibadaada sidee ku soo dhaweeyeen sidee u aragtaa والله horta marka soo galay waxa islaha adoo qoslaysa soo galay laakiin anoo ilmeenaya soo galay farxad darteed alxamdulillah ilaahay dadkeena naga ma qaado ilaahay dad Soomaali gob naga dhaliye mar walbana madaxay saarihiin Soomaalideena meel walba ay joogaan waxaan aan maqalnaa inaa ka soo jeedid reer soo halgamay oo taariikh Soomaaliya ku leh maadaama sumcad wanaagsan qaranka Soomaaliya shacabka Soomaali aad u soo hooyin lahayd waalidiinta maxaad kelmad u soo jeedin lahayd dhiileed horta waalid walba cunuga uu gacan qabto wuxuu ka mari ilaaliyaa asaa laga arkaa marka waalid walba cunugaaga wixii talent uu leeyahay mar walba garab qabo marka ani maanta meeshaan taaganahay waalidiintayda aabahay walaalahay oo mar walba saaxiib aan la ahay oo mar walba i dhiirigeliya alxamdulillah maanta meeshaan taaganahay heerkooda ku taaganahay asxaabtayda dadkayga Soomaaliyeed marka waalid walba waxaan dhihi lahaa ciyaalkaaga saaxiib la noqo ciyaalkaaga dhiirigeli ayaa u tala gashay tixyar oo ay soo jeedinaysaa طبعا amaana iyo maxaan ku raada waan ku faraxsanahay in gabar Soomaaliyeed oo qurux badan Soomaaliyeed oo matasho qaranka Soomaaliyeed ma sha Allah waxaan leeyahay cadal gaari baa tahay gobiya nasab ayaa tahay nasab gaar baa tahay geeyo ugu ayaa tahay gabdhaha bardheer tahay dadkana waad ka gudubtay guulayso waliga abwaanada aniga si wad waan u baahanahay gabdha Soomaaliyeed oo sidaan oo kala qaranka Soomaaliyeed matala Soomaaliya waxa la yiri 30 sano ka hor ay baabaaday laakiin dadka waxa u jeedaan in Soomaaliya baabiin gabdhaha nool ma sha Allah kale wiilashana waxa la yidhi dhinaciina iska soo geejiyeedan kara maadaama ay abwaanada gabayar ku tuurtaana xoogo tixyar baa igu soo dhacday gabyaama laakiin waxaan dhiilaa qalanjadii quruxday qoreyshadii haweenkay dumar ugu qaayaroonay qurubta Soomaali oo dhan baad qayb u degto qiimo iyo kalkacal ku abuurtay laabtooda waa ka baxay mar walba garab taagan dhalinyarada Soomaaliyeed raja team waxaan leeyahay hal mar loo saxbiyo teamkayga saxabsiya teamkayga maanta qorxadaan ay taagnaayeen maanta oo dhan team dhaqan waaye isliye ka dhisan yihiin magaalada waa dadka kaliya dhalinyarada garabka istaag waayahay daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa
ku saabsanaa soo dhaweynta Cadar Yuusuf oo markaasi Soomaaliya u guuleysay quruxda qaaradda Afrika gabdhaha jaamacadaha waxa sidoo kale jiri doonta xaflad ballaaran oo loogu talagalay oo dhawaan ka dhici doonta magaalada Nairobi taasna waa inaad u diyaar garowdaan sida soo qayb gal leedeen inaad dib u kulmi doono dhamaanteed isku duuban waxaan idinku dhaafeynaa sida nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh